بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. waxaa farxad u ah walaalihiin tasjiilaad ibn xambal alislaamiya inay idiin soo bandhigaan duruustan qiimaha badan oo ku saabsan manhaj almuwaasanaat lisheykh xasan xabeeb raximahullah. qaybtan waa qaybtii koobaad. manhaj almuwaasanaat waa manhaj cajiib ah weeyaan. ahlul ahwaa ay ku dhaqmaan, ahlul bidac ay ku dhaqmaan, iyagoo raba inay isku difaacaan oo ku difaacaan hadalladooda iyo kutubtooda iyo afcaashooda. wallahi almustacaan. waxaan noo sharaxi doonaa insha allahu tacaala manhajkaas iyo waddadaas oo ka duwan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waddadiisii iyo saxaabadiisa. bal isla dhegaysano. baaraka allahu fiikum. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. مع تحياتي ولاله عنوانك قيبت الضنباء أيان ما أنت هدي اللي يراك ورمضانا انت هرنا عنك سجرنا قيبت هراء سيدة إذن مغتنا قيبت الضنباء وحبار سنتعي القول الفصل في الموازنات في الموازنة. موازنة ده قول فصل الغيرة ayay ku saabsan tahay. waana muxaadarada qaybteeda hore qayb calaaqo weyn la leh oo in badan maaragtay saaxada lagu soo celceliyo oo dad badan ay ku hadlaan. waa in muwaasano la helaa. aniga marka walaalayaal muwaasana markii ugu horreysay oo aan maqlo waxay ahayd 1997 xilli aan isleeyahay hadda habeenada ka mida oo mid ka mida walaalaha salafiyiinta muxaadara ku qabtay masjidkan salaama ayaa muxaadaradaas iyada ah markii muxaadarada uu dhameeyey waxay ku saabsanayd rad calaa bacdi ahlilbidac lagu radinayay mas'ala. markii muxaadaradii uu dhameeyey ayaa laba nin oo xisbiya weliba waxay ku saabsanayd muxaadaradu raddi heesaha ku saabsanayd. laba nina xisbiyaa soo istaagto oo nina itixaadi ahaa nina ikhwaaniya. ninkii itixaadigaha wuxuu yidhi doctoorka waa la xantay buu yidhi. nin doctooraha muxaadarada hore dhigay oo la radinayay, marka doctoorka waa la xantuu yidhi. ninkii dambe oo ikhwaanigana wuxuu yidhi muxaadarku doctoorka muwaasana uma samaynin. xasanaadkiisii xumaantiisii waa sheegay inuu heesaha maaragtay baneeyey oo heesaha maaragtay aaminsanaa waa sheegay, laakiin xasanaadkiisii kale waa qariyey. maxaasintu doctoorku laabaa fara badneyd. doctoor firdi buu ahaa, waa kaytu ahaa. lama sheegin wixii maaragtay xasanaad ahaa. isla markiiba ilaahay subxaanahu watacaala i keenay. markii aan imid waxa alla igu ilhaamiyey inaan idhaaho ninkii ikhwaanigaa baan ku soo aaday oo hadalka wada. itixaadigu waa iga horreeyey. ikhwaanigaan ku soo aaday oo hadalka wada. waxaan idhi markaa war ninyow meeshaan aada leedahay xasanaadkiisa lama sheegin. meeshaan ma aha meel naqdi adabiya
loogu talagalay maaha waxaa loogu talagalay naqdi sharci ah naqdiga adabiga iyo naqdiga sharciga farqiga u dhexeeya marka adab ahaan wax la naqdinayo maqsuudku maaha in ama munkar la reebo ama macruuf la fara maaha maqsuudku laakiin maqsuudku waxa waaye in maxaasinta adabka iyo غير محاسنه لكلا عديه si maaragtay mutca nafsiya ay qofku uga hesho oo markaas ayadoo akhrinaysa laakiin naqdiga sharciga saas waa ka duwan yahay isagu wuxuu xambaarsan yahay ima in munkar la reebayo wa ima in macruuf la farayo ayuu isagu xambaarsan yahay ladadan ruuxiga nafsiga oo adduunyada uu maaragtay quruxda la macaansanayo ama quruxdaas mid la maqlayo ama mid la arkayo teerafta ha ahaato waa ka duwan yahay marka labadooda isku mid maaha midka adabiga wuxuu u baahan yahay in maxaasinta iyo masaawidaba meesha la wada keeno sababta ujeedada laga leeyahay waxayba tahayba in ama la macaansado ama la nacbaysto ama danta laga leeyahay tahayba adabkan asaga ah in ama la macaansado ama maaragtay la xumaysto oo la naco danta laga leeyahay waa intaas oo dadku ay markay ladadaas arkaan ay kala saaraan midka sharciga laakiin ujeeddo taa ka weynaa laga leeyahay waxaa laga leeyahay in maaragtay aakhira naar looga badbaado oo janno lagu helo ujeeddada ka weyn oo ay tahay adduunyadan labadeeda looma wadan leba muddo dibadeed waxaan haddana aniga aan arkay kitaab la yidhaha دعوة الرسل أو قري من عالمها يا محمد أحمد العلوي الذي جري وكهد لايا مسألة عن موازنة وحكم هذا الذي يسي نذكر معرض كور رمايي عند قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون آيات اسمك كور رمايي من سورة العراف أيو يري والظاهر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره الظاهر كوحو يري ذاتك لليه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وحي كان سائليهن ذاتك النبي لجوه يكون نبي كدن به فإن الأمم العظيمة لا تخلو من أهل الحق والعدل ومراه بين بنيهن ذات حق صاحبة مع عدالة صاحبة كمان مرنادان أيوه وهذا من بيان القرآن إلى الحقائق وعدله في الحكم على الأمم وأنك عدينت وحقيقينك عدالة حكمك أمرها والحكومة هي سنو قصار وياهي أي تركم تويري كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بالدينار لا يؤديه إليك إلا ما زلت عليه قائما وحكم له أهل الكتاب من هذا قنطار كأمنته oo maal fara badan aad ku aaminto ku keenaya oo ku soo gudanaya iyo mid hadda diinaar aad ku aaminto waa diinaar kaliya la yu'addi ilayka aan ku keenaynin ilaa inaad daba joogto intaas oo mulaasamayda mooye ilaa aan qaala ilaa uu ka yiraahdo marka wal ibratu fil ayati at-ta'assi bil qur'an al-karim fi bayan al-haqa'iq wa 'adli ayada maaragtay ibradeeda waxa weeye in lagu daydo quraanka ولوغا دايدا حقائقda sida loo cadeynayo iyo cadaalada quraanka in lagu daydo الحكم فالرجل الذي اتخذ القرآن إماما له ونورا يهتدي به قفكي ننكي كدقت قرآنك إمام يا نور وكونونه يتأسى به وكل ضيضاء قرآنك في الحكم على الأفراد والشعوب حكم أيه أفراد شعبية وهو قد ضيضاء فلا يسرف في المدح أو الدم أمانت إعامنت كمحد قدبه ولا يتغالى في بيان التاريخ منع مارت كحد قدبه تاريخ بعدين تده مارت إسكمان لتره تاريخ ده إنه عبديه وتاريخ ده وعبديه سيدا يدو الشجاع إلى أن قال إلى أكير أمريكا فالقرآن يرينا قرآن قول نتسيا أن الله يصح إن يسن أنسحين أن تحملنا العصبية للدين إن دين عصبية لدى أيسن هو حنبارن أو الكتاب أو كتاب عصبية أيسن هو حنبارن على أن مد أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم
إن أهل الكتاب حقه كحضرنا أنا أنكد دوسينا أشياءهم وحيابه ساس مكيانيس. وإنما الواجب على المؤرخ منك تاريخ القرية وواجب كوا أن يذكر ما لهم وما عليهم وحيليهم أهل الكتاب يوحي يقولوا هاي إنه ولا شيء واجبه ولا أدل اهتمام القرآن بالعدل في الأحكام من قوله قرآنك وحكة تسأل لما أقصنا وغمر عدالة أحكام عدالة وكسمية من قوله قولك على وحكة تسأل مجرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات داس وحكة تسأل لما أقصنا إلهي سبحانه وتعالى وحكة المامية ضدك مؤمنين تقول الله الله وحليه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط نقضى ضدهم مؤمنين كوا عدالة تاغن نقضى كوا عدالة يقصر تاغن نقضى وإلهي درتي وتاغن يا إسلام إذن حنبارين عراء ذو قبطان ضد إن عدالة سمين قف كان عراء قواد درتي عدالة سمين ما لا يجوز ما بنام قف عدالة وتيكر كلمات حتى إبليس عدالة بسمين هذه حكم لا يقدر إبليس وغيره لا بد من العدالة إيه العن قضاء أما ننكا ويسكح معنا أما هبلا يسكن نقرنا ويساس إيالي كل هذا لا يجوز ما بنانا إنا عدالة دوغتك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا إسلام وحنبارن قوم عراء قبطان يا إنا عدالة سمينا اعدلوا والعدالة سمية أيها الإلهي هو عدالة سمينتا أيها أقرب للتقوى تقوى إلى حكت ألا كعرسي سوماي ما حدث سؤتين يا ألا كعرسي وحاها إن عدالة سميسان مع كل أحد قف كستاب عدالة بالله سمينس قف أن الله بحنا لما أكرين عدالة الله سمي قف كستاب عدالة داس الله رب واتقوا الله ألا كعرسي إن الله خبير بما تعملون. تأمل يا أخي بين قول المتقدم هذا ليس بمقام أدب مقام كمركي هراء وعن كوس هراء من مقام أدبي ما هذه وبين قول هذا الإمام وإنما الواجب على المؤرخ أن يذكر ما له وما عليه لما قول السفير أنا ما كان الكلام حتى إلهام هذا أنا ما نرى كتاب كان منهج ويرغبكم مؤرخ وتاريخ القرآن مركي تاريخ القرآن وحواجب إن للشياطة waxay dadkaas taariikhda laga qorayaa leeyihiin iyo waxa lagu leeyahay xumaantooda iyo samaantooda waa in la sheegaa meeshay ku xumaayeen meeshay ku fiicnaayeen waa in la sheegaa waaye falmu'arrikhu wannaaqidu aladiibu ninka taariikhda qoraya iyo ninka adiibka oo naaqidka oo kala saaraya aqwaasha yaxtaajaani ilaa an yufiida fi tarjamati alinsaan waxay u baahan yihiin inay aada ugu fogaadaan ويأذوا بالبلاريان وفك ترجمة ليرى منه ما يستحسن منه وما يستحبح منه سلاك وحلقه ونفسه ونفسه يوحل النعبة يسب حلو وضعك يلبهي ثم استمعت إلى شريط الرد على منهج الموازنة للألباني رحمه الله تعالى شريط كان وهي شو محمد رحمه الله إنه كنت بسوية فكوا وضع نفسه marka shariidkaasan aan dibadeed haddana helay waa dhegey oo muwaasanaad ku saabsan shariidkii marka meelo badan oo aan hadalka sheekha fahmi waayo waa jiraan laakiin intii badnayd oo aan fahmay waa soo qoray gebigeed hadalkay ku imaanaya intii aan fahmay oo dhan oo weliba intii ugu waaweynayd ugu muhiimsanayd waa soo qoray waxaa markaas iisoo baxday inaan maaragtay sheekh alalbani raximahullah iyo culamadii muslimiinta kale ayaguna kasii dambeeyon keeni doono inaan alxamdulilahi aan waafaqnay mar hore iyo mar dambe وأنا أنقل كلام الإمام الألباني في ذلك الشريط حسب ما اتضح من كلامه هذا الألباني انت عداتان سامر لنا يا وفيه فصل القول في هذه المسألة التي كثر حولها الدندنة والجعجعة مسألة عن آدياب دلعية إذا قعقعوا كي وحبضا والغولة بلاطي ودكتور كي لما موازنين يهبل لما موازنين
iyo maaragtay naqdigan naqdi banaaha maaha naqdi banaaha waxaa la yidhaha midka muwaasano la sameeyo masaladaas qowlka sheekh alalbani baa insha allah fasilinaya a'imo kalena waa kasii dambaysaa qaala raximahullah wahuwa yubayinu bidciyata hadihi almuwaasana والتفريق بين ترجمة الوافية للشخص وبين النقد المقصود به تحذير المسلمين من شر هذا الإنسان أسوأ عدينا الشيخ الألباني موازنة إلى بدعتها يكون يلك سعر ترجمة وافيه أيضا عنما يسوقف الله سمايه نقد وجددي ستايكالية إن قفك شرطي سلقدقه ومسلمين دلوقدقه أسوأ كالسعر وحيري فأنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية وحلايا يبير نقده ولبعون بدون النقد قفك لنقدنا ترجمة ديسة أو ترجمة تاريخية لترجمين ترجمة تاريخية تاريخها لو لجد فهنا لابد من ذكر ما يحصل وما يكره ومما يتعلق بالمكلف من حوله markaan waxa laga maarmaana wixii xasilo dhan in la sheego waxa la nabi in la sheego oo wixii qofka mukallafka ku tacaluqa amma ida kana al-maqsud hadalka inta si taabir halki Muhammad Ahmad al-Adawi yusufir hadalkan فالواجب على المؤرخ أن يذكر ما لهم وما عليهم وقفك تاريخ قرأيه سمع الباني وحوليه هذه تاريخ الولجة ترجمة ناس قفكاس waxa la wixii ka xasila waa in la wada sheego kulli geed waa in la sheego waaye ama ida kana al-maqsud li tarjamati ar-rajul tahdhir al-muslimin hadii maqsud ka tarjamada ninka ay tahay muslimiinta in loo digo wa bi khaasatin gaarahan alladina la ilma indahum kuwan aqoon u lahayn bi ahwal ar-rijal raga ahwaashooda wa manaqib ar-rijal raga amaantooda wa masalib ar-rijal raga aybahooda bal qad yakun lahu sum'atun hasana 'inda al-'amma bal waxa badii karta midkaas la naqdinayo inuu magac sumcad wanaagsan dadka agtooda ku leeyahay walakin huwa yandawi ala aqidati sayyi'atin wa ala qulubin sayyi laakin wuxuu maarta u qarsoon aqeeda xun ama si akhlaaq xun baa u qarsoon oo dadkan sumcada waqtooda ku leeyahay ay la socon hawlaal aamma la yaarifuna an dhalika shay'an kuwa aamada kama yaqaanaan waxaas ninkaas waxba ولذلك لا تتأتى سورة قلم يصير هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة من ما أنت موازنة لو مر على ما سورة قلم يصير ذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة حالك الله الجزاء وقت أسوأ النصيحة وهي وليس هو الترجمة الوافية الكاملة من درس السنة روحي ترجمة وافية وكاملة مهل الجدد من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وفي سنة السيرة الدراسية كما شكينا مبدأ محدث كما أنفق الله إطلاقه بعد المدرس وهو الموازنة وهي لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات القاوحان أقول ما تقيبتان من مسألة الموازنات للشيخ حسن حبيب رحمه الله تعالى انتين كل منه دروس كلا قيمة بدنا صدانا كلا أوحاني كاتجينا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مع تحيات ولاله تسجيلات ابن حنبل الإسلامية والسلام عليكم.